qodobada kala qaarkood aan ka doonayno noo soo mandhigays waa mahadsantiin aniga horta waan soo akhriyey qodobada qaarkood ayaa soo jiitay waxaa ka mid a qodobka 22aad oo sheegaya suxufi waa maxay suxufi dawladdu waxay tiri suxufi waxaa loo aqoonsanayaa qofkii ka soo baxay goobaha waxbarashada saxaafadda haystana shahaado la aqoonsan yahay sida heer jaamacadeed macad xirfadeed ama tababar waayo aragnimo aan ka yareen 12 sano marka qodobkaas waa qodob markaan eegno 21 sano saxaafadda Soomaaliya ugu badan ee haatan ka shaqeysa waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah oo 22 sano ee burburka iyagu ka howlgalay saxaafadda Soomaaliya dad jaamacada soo arkay maaha dad macadyo xoog leh oo waxbarasho oo sanado ka soo baxay ma waa dad khibradooda iyo active-nimadooda ku noqday saxafiyiin marka qodobkaas balaan isla eegno waxaan siinayaa taajiro inuu wax bartaa ama macad ka soo baxaa ama jaamacad la aqoonsiya ka soo baxaa ama khibrad uu 12 sano leeyahay wax lama haleeyo fikirkeyga markaan ilaan waxaa la rabaa in wax wanaagsan la sheego wax wanaagsan la tabiyo aqoon lagu xiro wixii haddana saa sheegtay haddii dadkii saxaafadda ka shaqeynaya in badan oo muddadaa shaqeynaya waa dad qaarkood 12 sano khibrad haysan qaarkoodna aysan ka soo bixin jaamacado la aqoonsan yahay Soomaaliyana kama jirin jaamacado la aqoonsan yahay 22 sano xogaa waxaa fiicnaa in dawladda kaasoo kale ay dib u dhigto waayo dadka waxay ka soo baxeen iskuulo private ahaadaan iskuulo caadi ahaadaan Soomaaliya dawladda Soomaaliya la aqoonsanaa ma jirin aqoonsi heshay oo Soomaaliya 22 sano dadkii 22 sano da'dooda ahaa wax baranaya in la dhaha maanta maxaa la yiraahdaa macad la aqoonsiyaa ka soo baxan macad la aqoonsiyaa Soomaaliya kuma oolin 12 sano xataa ma dhisna macadyada qaarkood jaamacadaha la aqoonsiyaa xogaa in la qafiifiyo waa taasoo kale dad talent leh oo wax yaqaan oo wax bartay oo saxaafadii kaga fiican dad jaamacado ka soo baxay jiro dadkaas xanibaad lagu soo rogo waa in la qafiifiyo xataa 12 sano laga dhiga ama 5 sano ama 4 sano khibrad 4 sano ku filan tahay qofka wax waa la bartay luqadii waa la bartay qofka waa siyaasan karaa oo kaga fiicnaan karaa aqoonta saxaafadda qofka kale laakiin xogaa yar waxa u malaysaa in si adkeenay oo la riixay dadkii 22 sano jahaaday oo wax bartay oo dadku wax wanaagsan u soo gudbiyay in la riixo meesha la banay oo journalist la arkin oo qof wax sameeyo oo maxaa la yiraahdaa oo dadku wax u sheegay in la waayo taas xogaa anigu ma ku taageersan ma sida taajiro isla su'aashaas waxaan hordigayaa Firdaws Maxamed Cabdi Firdaws ma u aragtaa inay tahay qodobkaasi dawladda Soomaaliyeed mid ay markaasi ku caburnaysay saxaafadda Soomaaliya oo isleena 22 sano ee waddanka burburka ku jiray oo kaliya mid hana qaaday oo dadka ugu badan ama shacbiyadda ugu badan ee maanta saxaafadda Soomaaliya heerka maanta ay marayso soo gaarsiiyay yihiin dadkii aan heer jaamacadeed ama heer macad aan soo maray aniga waxaan dhihi lahaa saxaafadda Soomaaliyeed gabdhaha iyo wiilasha dhalinyarada ee media horta u shaqeeyay xilliga burburka hambalya dhihi lahaa waayo maxay ahayd maysan soo marin jaamacad macadi waaweyn maysan tegin shahaadooyin la aqoonsan yahay ma haystaan laakiin at least waxay xoogooda iyo dadaalkooda isugu geeyeen inay wax un dadka u taraan aniga aan shakhsiyan markaas ka hadlaayo jaamacad kama soo bixin macad caalami oo la aqoonsan yahayna ma tegin laakiin waa dadaalay tababaraan qaatay macadi yaryar maxay ka bartay adduunka meel walba aad tagtid haddii jaamacad aad ka soo baxdo aad shahaado haysatid waxaa ku hortaala experience ma leedahay 12 sano oo maxay ahayd khibrad haddii la yiraahdo lagu xiro wariyaha Soomaaliyeed haddii la yiraahdo 12 sano kadib muxuu qabanaa 12 sano khibrad waxa yiraahdo ma jiraan markay ugu yartaa waa 2 sano ama maxay ahayd 1 sano xataa waa maxay ahayd waxyaabaha ugu yaryar oo muhiimka ah waa 1 sano haddii la yiraahdo maxay ahayd ma leedahay waa aragnimeen 6 bilood waa aragnimo laakiin 12 sano 12 sano qofku wax kale ku qabsan karaa maadooyin kale tood ama waxay mar kale ku gaari karaa aniga markii ugu horeysa qodobkaas aqriyay waxyaabaha aan ka diido kamid ahaa gabdhaha wiilal tiro badan oo media hadda ka shaqeeyaan oo ila mid ah jiraan oo qodobkaas aad ugu soo horjeedaan aniga shakhsi ahaan maxay ahayd marnaba igama dhaadhicaysa qodobkaas Cabdullaahi jaamacan siiyo sidee u aragtaa qodobkaas maxaad isleedahay dawladda waa u baahan tahay in lagala taliyo inay ku darto wax meel dhexe la isugu yimaado in 12 sano khibradda bal ay waxun ka tiraan
والله horta waxaan kala mid ahay firdowsi inta badan oo markaan arka naftirkayga walwal badan ay gelisay waxaan u walwalayaa ma ahayn inaan aniga shakhsiyad cabsi aan qabo ama dad kale aan leeyahay hebel iyo hebel laakiin waxaan ka fikirayaa waxay tahay Soomaaliya maba jirinba meel wax lagu barto media xor ah oo si fiican u hirgalay oo ilaa ay heer gaareen waxay soo hana qaaday inta Soomaaliya ay burbursaneed Soomaaliya 90kii markii la fiiriyo wixii ka horreeyay waxay ahayd meel ay ka jirto dawlad adag oo media kooban dhowr idaacadood iyo afar wariyaal joogay oo maanta xataa markii taariikhda dib loo raaco markii la fiiriyo heerka saxaafadda ay ka gaarsanaan aqoonta dad badan oo hadda wax bartay ay kaga hormari karaan ama ay ka wax fahansan yihiin sida aniga aan qabo marka haddii la dhaha la kala saaro wariyaha 12 sano ha lagu xiro haddana yaana la fiirin aqoon kale oo dhan because maanta wariyaasha ugu badan ee Soomaaliya wax qabtay dugsi sare ay soo dhameeyeen aqoon kale ay kaashadeen media adduunka qofka markuu cilmiga taariikhda ama wax kala barto isla markii si automatic u galay kara saxaafadda hadduu tababaro qaata ama waayaranimo 2 sano 3 sano uu barto marka hadday dhihi lahaayeen qofka aqoontiisa ilaa ay dugsi sare ka baxay guddi gaarna loo saari lahaa dadka la fiirin lahaa ninkan wuxuu soo qori jiray soo wax u qori jiray qaabkiisa qofka fikirkiisa tuu gaarsiisan yahay guddiga loo saaraa dadkaas qiimeynaya qofka wariye noqonaya inay dhahaan jeclaan lahaa laakiin marka la yiri 12 sano way aragnimo ah imisa 12 sano ka badan joogto maanta markii loo soo fariisto saxaafadda ama contribution ay ku leeyihiin marka la fiiriyo wax aan xumaan ahayn aan qabo 12 sano nin 2 sano ku jiro waxa arkaysa 12 sano nin ku jira ka fiican marka waxaas waxay keenaysaa mararka qaar in la fiiriyo 12 sano yaaba ku jira kii criminal ahaa saxaafadda ku cad lahayo 20 sano ku jira la gudbiyo ninkii hadda aqoon kale oo saxaafadeed aqoon kale oo caadi ah dugsi sare iyo jaamacad sare ka soo baxay oo kaashada aqoonta saxaafadda luqadaha bartay isaga wax isbaray oo media maanta contribution ugu fiican gaarsiiyay in la hesho laga reebo marka taas inay aad ugu degdegeen qiyaasa inay dib ugu laabtaan way tahay wax ka bedelaan ra'yigana waxaan qabaa in la qiimeeyo aqoonta uu leeyahay qofkan maxay tahay basic aqoontiisa kale dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare ma ka soo baxay asaga sidoo wax u qoraanto wax ku qoraanto ka shaqeeyay taas marka waxay ku qiimeyn karaan qofkan in loo ogolaado inuu wariye noqdo kara laakiin 12 sano waqti aad xirtay wuxuu soo kordhinayaa malaha because maanta markii oo dib loogu laabto Soomaaliya waxa kale oo meesha aan ku arkay oo aad aan loo yaabo qodobada dabcan waa arki doontaan waxaa loo kala qaaday 1990 ilaa 2004 xilligii burburka wixii ka horreeyay xilligaana dawladda jirtaa taas naftirkeeda maxay tahay marka la cado haddii la cadeen lahaa la dhihi lahaa laga sii fikira arrintan si kala loo dhigaa waxay ahayd laakiin maxaa loola jeedaa taas naftirkeeda in la isweydiiyo marka waxaan qabaa inay dib ugu laabto dawladda talada dadka ay soo jeedinayaan inta badan waxay u baahan tahay qofka in lagu qiimeeyo qofnimadiisa عقليسي جراتيسي تجارتيه أقونتيسي كلام قف أقول هذا ما إيمان كرميديا ما هذا اللي كلام أنا ما قري كلام هذه هذا إحنا مثلاً لا كل حلو بس هو الصحافة بس أقونت صحافة كلمة وياش كل شغله قدام ما أقدر صحافة صوم برا كل يوم وحياة كلام برتين ميديا توبر بسمين وإنما قاتل مركز صحافة أقدر مع صحافة الموضوع الحكومية عندنا وحنا صوبر ذكر هي الصوبر أقونت هذا بسعودة قرش كذا بحيان مشاريع وحسين دي مرة يجي على وين دي ما أنت ممكن على صوفريست وزارة الوفافين ده وسط جاية لبيه توصلنا من كسر جتنا ay ka mid yihiin dadka maanta la leeyahay 12 sano u yaraan waa inay la yimaadaan khibrad 12 sano ama shahaado iyaga sameynaysa dad saxaafadda guud ahaan wax ay hoos maanayso waa dawladda federaalka حتى dadkii iyagu u shaqeynaya soo galay sheekadan dadkii 20 sano ka hor khibrad saxaafadeed lahaa ee Soomaaliya maanta way ognahay deewaa dad adduunka u kala firro maanta Soomaaliya aan joogin marka kolay garyar wuxuu ku daraayay isaga oglaa aad u mahadsan tahay anigu waxaan rabaa inaan ku daro inta badan waxyaabo ay isaga dhownaay asxaabta qodobkani wuxuu qeexayaa horta si dhab ahaan wuxuu u saameeyaa horta yaashifiya أنا سأعمل مركب لو في وجعلها إن عدي يشفي صوت البعث بدون ما ينقاس يشفي ولي بقول بقى عملنا هذا السوق اللي أنا سوني من ضد بدن أو صحافة الصومالية شيء جنايا وأنا صحافة هروب هاي عد كستوب سيد بفرصي وهي فيسا عايزة كرامة دي صحافة أنا مثلي إن هذا شيء قاعد الصحفيين ما تروح شو أنا صوت واحد ضد كلهم شايفيني كان أسطورة وقناع دولة هذا وعاية شخص بيرسونال اللي هدوها أحتوى عارف إن من أنا عارف هي اللي ما وعي هي المسؤولة أو عينه تلفني بقول يستوي كان على حساب بعض سنة وغري عي أوتوماتيك ورنيه وهذا اللي تلف كاتو وحلايا مش كوسي حلايا اللي بروبلم بس مركا خذوا كنا نص صح وحنا أنا أركع هرتا
sidoo u dhigaya ma ayna taageerin laakiin waxaan u arkaa in la adeeyaa marka soo baxaysa ka suxufiga dhabta soo wasaaradda wafinta u shaqeey marka waxaan rabaa inaan ku daro meeshan 12 sano la leeyahay horta inuu qofka shahaado jaamacadeed haysto waa qayb haddana waxa la yidhi macad saxaafadeed waa inuu haysto laakiin waxa la yidhi macad saxaafadeed ka sokowa hadduu maanta macad saxaafada qofku saxaafada uu kasoo baxo maanta intuu rabaa ku qaato automatic uu shaqeyn karaa ka shahaadada haysta oo jaamacad ka soo baxay media uu shaqeyn karaa kan macad saxaafada ka soo baxay uu shaqeyn karaa siduu qodobku u dhigan yahay laakiin waxa la yidhi labadaas kii ka soo qaata waa inuu haysto tababar iyo waayo aragnimo 12 sano waayo aragnimada 12 sano ma cadda حاجة ويا عربية هدو رقمين ويا عربية هي كورن ميج هدو ويا عربية هي جناح سيكو هدو ويا عربية هي هدو ما يجيب ما يكبرت ما وحكبر وحبرش الصحافة فينا سلوك ولا ما أخيرا في الصومال وحكبر وين